السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان والأمن إيمانك يو نبت قليادة فدي لها يدمو وحان اسكودو يدونا لبدا علاقة كده حيسا إنان انتي أن وحكا ورنكر إنا وحكا يلاده دي لها يدمو انتي أن سوكو بكرينا إنا سوكو بإذن الله تبارك وتعالى. الأمن ونبت قليادة كتابك إلهي سبحانه وتعالى ميلا كلا دوان أيو كشيغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وي أبارتي طبيعة بني آدم كنا أما غريزة آدمهنا واتجابيي نبض وحا يتحي عقلك إنا آذنا وإسكر راعي نبضي إنا محيطه لي خير إنا خير بدن تحي marka wixii wax lagu qaadan lahayo idil ama nas sharciyo waxiyo kitaabiyo han noqdo ama nas sharciyo nabawi ah han noqdo ama aqliga aadamaha inta nabada qabta ee badka qabta han noqdo ama gariizada aadamaha han intaas oo dhan waxa isku wada raaceeni nabad ba naasna maala leh oo la isku wada raacay marka waxaan sheegi doonaa hadii ilaahaydna bal nusuusta aayadaha quraanka iyo baan ka sheegay hadii ilaahaydna isleeyahay bal macnaha ay taaban doonaan kadibna waxaan gali doonaa biidna ilaahi tabaaraka wa tacaala nabad la'aanta maxaa keena afar qodob oo isleeyahay nabadgelyo la'aanta ayay door weyn ayay ku leedahay waxaana ku soo khatimi doonaa dowrka qiyamka oo qiyamku oo ka dhashay إيمانك عقيدة قلبك دكتي عربك الربيعي حبنه أي موجين أي وحى دلا قيم يقاب دقمات أي دلا مكا يدنا ملاح إلا صدق طبعا قضبة أصلية هو قيم كواوين إلى علينا بتجليه إلى عليا هدي لوايانا أنا بتجليه إيمانين يعني يدنا كوكوبي دون هدي لهيدمو درسيين إنها هاس أي دارية إن شاء الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يدعو حلي سبحانه وتعالى على عرب النبي صلى الله عليه وسلم markay gaaladii isku dayeen nabi maxamed inay ka cabsiyaan sanamyadan uu ka tagay uu ku gaaloobay ayay ku cabsiyeen ma sanamyadii iyo dhagxantii aanu caabudeynay baad ka tagtay dawaabad hoogiye markaas waxyi baa soo daadagaya uu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam quraana sideen u baqa anigu oon uga cabsadaa dhagxanta aad ilaahay geyrkii ilaahay ka dhigateen ma sanamyadan aad igu cabsiinaysaan tegidda aan ka tagay idinkuna kama baqaysaan miyaa inaad ilaahay u shariik yeesheen wax aanu ilaahay ku soo dhaadhicin wax sultaana marka labadeena fa ayul fariiqayn ahqqu bil amn ma anay tahay inaan cabsoodo sanam ka leexday mise idinkay tahay inaad cabsootaan oo ilaahay ka leexday yaa mudan فأي الفريقين أحق بالأمن نبتجليو الدنيا آخرة يا مضن إنو هلو أو هلالو ما أنجي حق كتاجنايا إلهي إذن كيري كلين ماذا يمد ماذا إلهي مسا إذن كان سنمية كدل طوافة يا إلهي غير كي ربي كبركتي أي آية الحيد ما كذي فأي الفريقين أحق بالأمن أيتها إنو حصلوا أيتها إنه أمن دريمه أمن جمك أول بوقات الأمن النفسي الأمن الروحي الأمن في الدنيا الأمن في القبر الأمن في الآخرة انت بده أمن قبل والبجلي إلا انت بوا لو بهايه نبتجليه قلبي إنه حصله نفطه إنه يحصله روحه إنه حصله قبرك إنه جبت باده صراطك إنه جبت باده يوم القيامة إنه جبت باده انت صار رب أمن جينه وطبص على مكان ما كان جابنا كهذا يقول أمني إنه يهاي ونوشن إن أنا هينه أركتدا إسلام كقطة غير أمني وحي كقادة سا ما أنت إنه جوجنه الدون كانوا كنا نهاي
ilaa hooygeena ugu dambeeya aakhira ah intaasu amnigu inala socdaa fa ayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuuna su-aashaasaa la weydiiyey ilaahay markaa uma daynin inay iyagu ka jawaabaane isagaa ilaahay ka jawaabay waaladiina aamanuu haddaba duulka iimaanka laga helay iimaankoodu xasilmay walam yalbisuu iimaanahum bidulmin oo aan ku ladhin iimaankoodii shirki aan ku ladhin adduunka intay joogeen iimaan hufan laga helay hee ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun ulaa'ika buu horu mariyo si aanan wax kale loogu ladhin kuwaasi keligood uunbaa nabadgelye heli doona nabadgelyadii markaa intii aan kuu sheegoo dhan mari adiguna markaas wahum iyaga keligood uunbaa haddana waa kaa hum horu mariyey muhtaduuna kuwa hanuunsamayna waa iyaga uun keligood buu le allah subxaanahu wa tacaala idan halkaa ilaahay subxana wa tala wuxuu kaga jawaabay amni fi dunya waalaakhira waxa leh duulka ilaahay keli rabbi ka dhigtay subxaanahu wa tacaala deedna wixii ay kulansanaysay iimaan billaahi uu kulansanayey caqiido caafimaad qabta cibaado saxsan akhlaaq qumman dhaqan toosan intaas waa midhihii iimaanka ay leeneen intaa cidda heshaa ulaa'ika lahum اlamnu adduunka nabadgelyay ku noolaan aakhirana ilaahay baa badbaadin wahum keligood muhtaduuna ayaa hanuun ilaahay siinaya min allah subxaanahu wa tacaala aayadda labaadi ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu الnaasu min xawlihim afa bilbaaطili yu'minuuna wabinicmati illaahi yakfuruun suuratu lcankabuut tanna waa gallad ilaahay galladihiisa iyo nicmadiisa nicmad ka miduu ilaahay inoo sheegaya miyaananu ka yeelin buu ilaahay yidhi meesha ay degan yihiin qurayshoo xilligaa gaalo oo mushrikiin u badnaa xaramkay joogaan waa baytullaahi alxaraam kacba almusharafa miyaanan ka yeelin buu ilaahay yidhi xaraman aaminan waa dhul nabadgelye amaanan idin siinin miyaydaan idinku kala badbaadin caraboo dhani miyaanan idiin imanin si ay xaramkaa ugu xajiyaan sow hantidoodii iyo lacagtoodii iyo maalkoodii oo dhan lama keenin oo maki keliya may ahayn uun meeshay carabi sanamyadooda ay ku caabudaanoo muqadas u ahoo qalbigooda uu u soo jeedo qibladoodu ma ahayne kadaalika waxay ahayd almadiina tijaariya magaalada ganacsiga caraboo idili maka ayay ahayd marka laba arrimoodba way isla haysteen inay yidhaahdaan almakaana diiniya annagaa hayna oo meeshaad u soo xajidaan waa meeshayada kadaalika ilaahay wuxuu siiyey hantidii mandiqadaa taale in la keeni jiray oo ganacsiga ugu weyni uu ka dhici jiray tii buu ilaahay ugu gallad sheeganayaa waa dhulka aad degan tihiin dhul nabadgelye qaba ma idinka dhigay agagaarkiinana colaad iyo balaayo ma ka hufan tahay oo ma ka taagan tahay su-aashoon markaa ilaahay keenay haddaba haddaan sidaa idinka yeelay miyaanan mudnayn inaad ii mahad celisaan ood iimaanka raacdaan afa bilbaaطili yu'minuun haddaba ma rabbiga sidaa idinla dhaqmee sidaa idiin koolkooliye waxaasoo dhan idin siiyey halkaad raaci lahaydeen ee nabadgelyada idin siiyeed ku nooshiin ood ku naalootaan maanta halkaad diintiisa iyo sharcigiisa iyo akhlaaqdii nebiga sala allahu calayh wasalam gacanta midiga aad ku qabsan lahaydeen wuxuu yidhi afa bilbaaطili yu'minuun ma ka leexateen markaa ma baaطil baad rumayseenood raacdeen hee wabinicmati illaahi yakfuruun ilaahay muxuu ka soo qaaday xaraman aaminan muxuu ka soo qaaday nicmat allah buu ka soo qaaday nabadgelyadii ilaahay muxuu ka soo qaaday inay tahay nicmad iyo gallad ilaahay wabinicmati illaahi ma galladii ilaahay baad ku gaalowdeen ood maxay toolay ka leexateen waa aayaddii labaad ama aayadda saddexaad ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay waana aayadda aan rabo inaan uga dhigo madkhal mawduuca aan akhriyi doono haddii ilaahay falyacbuduu rabba hada albeyti ha caabudaan beytkan rabbigiisa oo ilaahay ah waa ayo ilaahay baa isbaraya markaa waa ayo alladii waa ilaahii acamahu min juuc gaajo iyo abaar idinka badbaadiyey kow wa aamanahum min khawf
cabsi iyo walbahaarna idinka badbaadiyey rabbigaasaa mudan inaad xaq u caabudaane caabuda xaajaat albashariya baa la yidhahdaa markaas alxaajaat albashariya ugu muhiimsani waxa weeyaan qofku inaanu boggiisa aanu u baqin maxaad ku ridi jidhkiisana aanu u baqin iyo naftiisa iyo inta uu jecel yahay talow maxaa gaadhi labadaasi qofku hadduu ka nabadgala nafsiyan saaka maxaad cuni qadada maxaad ku qadayn ubadkaagu maxay ku cashayn hugaad xidhan tahay halkeed ka keeni bacadka iyo dhaxanta meel aad ka gasho ma heli nabadgelyo maad soconi intaa haddii la helo waxaa la yidhaahdaa waa alxaajiyaat alaasaasiyatu lilbashariya waa waxyaabaha essentialka u ah bani aadamku inuu maxay tole inuu helo man asbaxa idinka qofkii idinka midee waa u bariyo aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qofka idinka midee waa u bariyey saaka ilaahay waaga ilaahay inoogu bariyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rabbi laka alxamd waad soo toostay saaka jidhkaagiyo caafimaad qaba sariirtii ma jiiftid jidhkaaga waa kuu caafimaad qaba alxamdu lilah intaa dad jecleedeed ka naxaysayna waa kuu nabad qabaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta waxaad cuni lahaydna kama werwersanid laa laxooxdii yareedee saakana waa soo maantana waa jimca wasladii yareedna meel bay taalaa biidni illaah gabalku markuu dumana qarmac yar iyo garow yar iyo caano meel aynu ka helno meel bay subxaana rabbika soo intaa meel kuma ogin oo ilaahay mahadii maaha intaasaa rasuulku wuxuu leeyahy markaa sala allahu calayhi wasalam intaa qofka haystu ilaahay iskugu daray jidhkiisiya u caafimaad qaba dad intuu ka naxayo u bad qaba haddii eebbukuur wuxuu maanta cuni lahaayoo meel uu ku og yahay maaha 10 sano waxaynu cuni lahayn maaha maanta wixii aad cuni lahaydood meel ku og tahay hee yaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fakaannamaa xiizat lahu ddunyaa bixadaafiiriha waxaad moodaa buu yidhi qofka adduunka inta loo soo duuduubay in boggiisa loo saaroo la yidhi adaa adduunkii oo dhan hayste qaado waaya halkaas horta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigay qiimaha uu leeyahay nabadgelyadu iyo iimaanka sida uu ugu xidhan yahay haddii nabadgelyo maxaa keena nabadgelye la'aanta markaa waxa ugu waaweynee keenaa waa maxay waxaynu nidhi baahiyaha aadamuhu baahiyihiisii asaasiga ahaa haddii laga leexdo oo la waayo ama laga leexiyo oo ulakac loogu sameeyo aadamaha khalkhal in la geliyo baahiyihiisii asaasiga ahaa waxaa imanaya nabadgelye la'aan baa imanaysa aslan laba qodob baan taa markaa ka eegi alikhlaalu bilcilaaqaati bayna albashar aadamaha cilaaqadda ka dhaxaysa haddii khalkhal la geliyo ilaan geedama nihin geedadka ilaahay wuxuu u abuuray mid walba geed walba gees buu ilaahay u taagay jiriddiisa xididiisa midhihiisa caleemihiisa geedna geedu ma baahna alleelehee marka ay isbarcaminayaan ayay baahi isku qabaan markaana ilaahay baa u soo dira dabaylo wa arsalna ariyaaxa lawaaqixa taana ilaahay baa subxaanahu wa tacala tadakhula laakiin geed waliba iskii buu taagan yahay laakiin inaga ilaahay saa inagama dhigin waxa ilaahay inaga sameeyey subxaanahu wa tacaala cilaaqaadkeennii buu ilaahay sameeyey ama ha noqoto usra ama ha noqoto raxim iyo xidid maxay tole ha noqoto inaan wada noolaano oon wada joogno oynu isqadarinno oynu iskaraamaynaana waajib diini ayay noqotay maba kala maaranno nolosheennii oo dhan baa ku saabsan cilaaqaadkeennu inay hagaagaan oo saxmaan haddii markaa halkaa la geliyo khalal nabadgelyo la'aan baa imanaysa qodobka labaad ee nabadgelyada dhalinaya waxay culamaa ijtimaac isku wada raaceen ulooyinka sociologiga waxaa akhriyo waxay isku wada raaceen iyadna haddii la dumiyo bii'ada cilaaqadaynu bii'ada la leenahay dabeecadda taa lafteeda haddaynu farafarayno iyadna nabadgelyo la'aan ayaa iyadna halkaa maxay toolay yaa ka imanaysa qodobka koowaad cilaaqada dhexdeenna ka dhaxaysa oo khalal la geliyo ama sugnaan weydo waxaa madhar u ah ama waxay ka dhex muuqanaysaa qilatu alcadaalati alijtimaaciya waxaana ay gaaladu yidhaahdaan the lack of social justice cadaaladda bulshada oo lunta hadday bulshadu kala dhaqaaqdo
in yaroo hanti haysata hantideeduna hanti goosad ay tahay iyo in badanoo waxba haysan luqmada afka ay saarto aan haysanin zakadii iyo sadaqadii iyo nafaqadii iyo gurmadkii islaamka ku yaalayna la joojiyo oy ummaddu kala dhaqaaqdo waa waxyaabaha koowaad ee khalalka keena nabadgelyada alcadaala ijtimaaciya oo la waayo waa kow laba oo iyada lafteeda ah tawsiicu lmawaarid meel baynu wada degannahay waddankanaynu wada degannahay waxbaa soo gala wixii yaraaya soo gelayey haddii bulshada galbeed ilaa bari waqooyi ilaa koonfur miyi iyo magaalo tuulo iyo magaalo weynba hadduu meel qof waliba inta uu istaahilo wixiisa loogu geyn waayo uu halkiisa ku qanci waayo aaway nabadgelya marka labadaa qodob in la ilaaliyo waa cilaaqaadka bashariga ka dhexeeya waa maxay alcadaala ijtimaaciya saboolkii agoonkii miskiinkii armaladii ubadka keligeed korinaysay kii waxbarasho la'aantu ay haysatay caajiskii aan socon karaynin kii gurguuranayey ummaddaasoo idiloo inagu dhex noori inay asaasiyaadkii nolosheeda inay hesho iyada oon baryootamaynin oon albaabada qaraacaynin oon wejiga iska fiiqaynin inay guryahooda iyo meesha ay joogaan ugu tagaan baahidoodu inay ugu tagaan xaqun macluum ummadda ay ku leeyihiin ay taho ilaahay meel uu dhiga subxaanahu wa tacaala waa waxyaabaha adkeeya midnimada iyo waxyaabaha adkeeya nabadgelyada adkeeya kow ta labaadina haddii hantidii meel keliya ku aruurto oo ahayd inay dawladdii faafiso oo qaybiso si cadaalada haddii meel loo sadburiyo meelna ay abaari ku dhacdo oo laga qadiyo waxaa bilaabmaysa iyadna khalal fi lamn nabadgelyadii iyadna dhaawacayaa maxay tooleegi marka uu saxaabigii uu warwarayey ee uu lahaa haddii neef uu ku kufo magaalo heblaayo hadduu ku kufo waxaan ka baqayaa yowmalqiyaamo ilaahay inuu yidhaahdo neefkaasi waddada uu marayey maxaad ugu hagaajin weyda in ani la i weydiiyo bal cumqiga islaamka baleeg bal ninkaa saxaabiga ahee mas-uulkii wuxuu ka fikirayaa neef kufay uu leeyahay yowmalqiyaamo ilaahay anuu i weydiini maxaa neefku u kufay imisaynu god ku dhacna gaariyada waa iska orayne hadda fiir neefkaasuu ilaahay wuxuu leeyahay saxaabigaasi anuu yowmalqiyaamo ilaahay i weydiinayaa neefkaa waddan wanaagsan muxuu u mari waaye waxa weeyaan waa tawsiicu lmawaarid waa qodobka labaadee nabadgelye la'aanta keena ama keeni kara waxa weeye waa markaan ka hadlayna cilaaqaadkii basharka eh xaakimka iyo maxkuumka hadday cilaaqadda u dhaxaysa hadday xumaato madaxda iyo shacabka cilaaqadda ka dhaxaysa hadday xumaato markaa waa xadiiskii ahaa madaxdiinna waxa ugu khayr badan kuwa aad u ducaysaan ee aad jeceshihiin kuwaasaa ugu khayr badan cilaaqadaasina cilaaqa toosa inay noqoto oo mujtamacii shuuradii inuu ka qaybgeliyo aragtidii inuu ka qaybgeliyo talo in la weydiiyo inuu madaxdiisa si sahla ku gaari karo oo wixii dhib iyo dhibaato jira inuu u sheegan karo iyo labadaa qodobba ugu waaweyn cilaaqaadka bashariga oo khalal uu ku dhaco amaa dabeecadda bii'ada aynu ku noolnahay deegaanka aan ku noolnahay haddaynu taataabanno isaga laftiisa waxaa ka dhalan kara nabadgelye la'aan iyo waxaa ka dhalan kara abaar waxaa ka dhalan kara majaacaad waxaa ka dhalan kara dagaallo ayaa ka dhalan kara lafteedii oo laba qodoboo iminka innaga somaliland aad inoogu weyn oo khatar aan isleeyahay khatarta ugu weynee waddankaba haysataaba labadaa qodob bay kow u tahay midi waa qaadka midina waa geedadkan la guraya ee dhuxusha midi bani aadamkiibuu taabanaya caafimaadkiisii iyo caqligiisii iyo hamtidiisii iyo wakhtigiisiibuu toos u taabanaya khatar weynna waa leeyahay midina geedadkii waddankoo dhan baa lasoo gurayaayoo la gubayaayoo la xaabaynaya markaasaa hadhow la odhanaya roob la'aan iyo biyo la'aan iyo ayaa inagu dhacday labadaa arrimoodna dumarka la kaftama ah labadaa arrimoodna cidda ugu waaweyn ee waddanka ka shaqaysaa waxa weeyaan waa dumarka labada shirkadooda ugu waaweyn ee qaadka waddanka keena dumar baa leh laba gabdhood baa leh
وحلالا واحد دحول ودن كان لجبنا رجع سوق جبا عدة درتها دمر يقعد كيس بحساء هدي أبو كورو يا هي جاري كيس بحساء وتقول هذا الله كيرو مركات دمر دايم بضبط علينا ما تسكح حجية جزاكم الله خير صرت واكو مركات طبيعة إنه تابنانا waxay keenaysaa nabadgelyada waddanka door weyn bay ku leedahay cilaaqadii aadamaha ka dhaxaysay haddii uu burburo oo hantidii sax loo qaybin waayo cadaalad ijtimaaciya la waayo maxaa dhacaya mujtamaci waxaa ku dhacaya burbur dhaqaale koow burbur bulshadeed laba maxaa ka dhalanaya qillatul intaaj wax soo saar ma jirayo jaraa'imka inagu badanaya ama ha noqoto tuugnimo ama ha noqoto laaluush ama ha noqoto dhalinyaro dadka boobta dhalinyaro ama mobile ha ka qaataan ama gaar ha ka qaataan dhalida faraha badan jeedalkeena ku jira aad u fara badan oo inuu wax diraasay iyo wax cilmi baadhis aynanu maxay ku sameeynin waa natiijo maxay weeyaan qodobka labaad ee ka dhalanaya waxa weeye الاضطرابات السياسية سياسة دي ما حصليسو هاد يجر عد بعبانيسا حبا نغا مقد صح لو ما قايبين حبا نغا سيئة هاد يجر ما حد جرته قعشو جوجته هدي سياسة دون أي سلك دولك أي دقو ويدو أو بلشدو كوة قنعي ويدو وحا سواء نوضن هل كاسين أوضا سعنا سيسمان بينو وحيني أهلني يدنا خلل keeni kara nabadgelyo la'aan iyadna maxay tole keeni kara amnigu marka haddii ay qodobyada aan isku daro haddii bulshada laga dhexelo oo nabadgelyadii la waayo si fardi ahna way ii taabanaysaa si bulshadeedna way ii taabanaysaa si fardiya way ii taabanaysaayoo kadeed baan ku noolaanaya iyo cabsi joogto ah si bulsho weyna way ii taabanaysaayo waddankii ma horu marayo halkaan rabnayna ma gaadhayno had iyo jeer waxaan halkaynu tallaabo kor u qaadi lahayn dib ayaynu maxay toolay ayaynu u soconaynaa iimaankii aan ka soo sheekaynay iyo amni la'aanta waxyaabaha keena waxaan rabaa inaan isku xidhno iimaanku wuxuu dhaliyaa qiyam aliimaanu maa waqara fi lqalbi wasaddaqahu alcamal soo mahayd iimaani waa shay laabtaada iyo guntaada degay ood rumaysatay markaasaad ku joogtay de waa murji'a tahay waa khatar waanaad wax ku dartaa markaa oo aad tidhaahdaa wasaddaqahu alcamal waa in qiyam iyo cibaado iyo akhlaaq laga helaa qaab dhaqankaaga la yidhaahdo qofkaasi wuxuu sidaa ugu dhaqmayaa waa mu'min waa in la yidhaahdaa marka waxaan rabnaa oon ku gebagabayn doona waa in yarbaa ii dhimane iimaankaasi waa inuu qiyam keenaa qiyamkaasina waa qiyamka inoo ilaalin doona nabadgelyadeena inoo ilaalin doona qiyamkaasina waa qiyamkii ka dhashay aliimaanu billahi caza wajalla subxaanahu wa tacaala nin faransiisoo falaasifada waaweyn ee faransiiska ah ayaa wuxuu yidhi jack berk ayaa la yidhaha wuxuu yidhi actaqidu waxaan yaqiinsanahay buu yidhi annahu min almustaxiil waa arrin adag أن شعبا من الشعوب يصل إلى مستقبل سليم bulshooyinka ka mid yihiin inay horumar gaadho meel durugsan inay gaadho biduuni ixtiraam wa ixyaa'i alqiyam ilaa ay is-ixtiraamto oo qiyamka dhexdeeda iyadu ay aaminsan tahay ay ku noolaato falaa mujtamaca biduuni qiyam ma jiro mujtamacan qiyam lahayni adduunka ma jiro aslan mustaqbalkeenana iyo mustaqbal cid walba waxaa xadida mujtamacaasi qiyamku ku nool yahay waa maxay oo markaanu iminka gaalada la joogi jirnay oo kale ayaa haddii aybu kuu roo yahay qur-aanka inaga waraystaan diinta islaamka doodo waxaad ku odhanaysaa annaga diintayadu qiimaha aqoonta kor bay u qaaday qiyam soo maha aqoontu waa qiyam soo maha kor bay u qaaday markaasaanu nusuustii qur-aanka uga baxnay oon u sheegnaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نون والقلم وما يسطرون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء
آيات كاسم كبحنا أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسوا محي ونصوص قرن وتكست قرن والنص جي مركي أنجو هذا الكبركو أنجو نجو جدبو أي جوابت محي نقول ساعة ومسلا صار علم جو أكتين وقيم كاسو ها أكتر علم جو alright هكذا أقونت ما أنت كجير تامه ما كاسو أشد بالنقطة مركها أقونت ما أنت دونك تعالى هكذا كجير تام محاد عرسين محاد صوصارتين محاد قرطان أقوياها كيني علماء محي ودنا المسلمين توقع صويا عيا سيدا الشمبرو جيد كهذه أو كله يعني أنك نوجي مادان محي أنك علماء نوجا كرفيستان حتى سلا أختينا علم وقيمة ساء وقول لي يعني محي إذن هري كو لا بوحن خلا هذا وحن أشياء جرنا هذا عدالة الإسلام كهلكو كجرو وصوص عدالة ورنا هذا آخرنا قال الله وقال هذا قصلان بين هذا محل كاس العدالة كجوكتان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الله أكبر مركز عدالة نرجع بس مرة بعد عدالة كذا نك مال وين بينك تعالى هيه ما حد يسكت عنتين أو يسكت ضحين أو يسكت دشين أو ودن كيدو بربرسين أو جار كيدو برسين أو سوق حدين إذن كي أوبت كيني ما حد أكتر قحوتي وقتي نوقر في سنة أو عدالة إذا كان بدبادين يسمك هذول كين الجوكتان ما حد تصالون كإذا كشاكينه واحد إذا كشاكينه واحد ربع إيمان كان قلبي قدقي هدي لوايو نول المعلومات كوح كرر شيء الله يراهض مرها قرح ضبضان واحد اللي إيمان كي أن رمى اثنين كلية شيء شديسة على مسؤول وين بصار وإن أبدلنا نول المعلومات وإن أبدلنا إن لقى أركان إيمان سجن هي قيم هي أخلاق هي عبادة وإنه المعلومات كانوا مسلمين تاني وإن لقى أركان أمد واللي بنوا حيلاذا هاي ثقافة وقارة قيم وقارة إنه بنوا حيلاذا هاي ثقافة إنه قارة هي قيم إنه قارة أو حنا هاي لكن كانوا لكن صومالي بنهاي عرب منهن تركي منهن بيرشيان منهن تركي منهن أفريكان كلم منهن صومالي بنا horta qodobkaasina waa inuu laabteena galaa macna waa maxay wax allaala wixii qiyamka Soomaaliyeed iyo thaqaafada Soomaaliyeed xambaarsanaya diinteena aan daawacayna lid ku ahayn waa inaynu ku faanayn buunbuunina afkeeni dhaqankeeni suugaanteeni abwaanadeeni huggeeni saynu waxaasoo idili waliba waxyaabaha ummadaheena Soomaaliya waliba lagu xamto waxa kamida waxaynu nahay dadka ugu dhaqsaha badan ee ka siibta dhaqankooda man allaala meeshii adduunka aanu tagno marka la iskugu yimaado cid waliba dhaqankeeday ku dhagan tahay Soomaali hadduu Pakistaan tago sida Pakistaanidu u labisan hadduu Yemen tago sida Yementu u labisan haddaan udiin imaado inteeda carabtaan iska xidhanna waa tan waa fiir war idinku maxaad lahaydeen Soomaaliya ila dadka kala leh adigu maxaad lahayd وتكفانا سامرك هذا يقول حي الله الدونسيت وعقدة الدون مركا horta qodobkaasina inuu laabteena galo iskuuladeena iyo warbaahinteena iyo shirarkeena iyo culamadeena dhaqankii Soomaaliyeed cidi inaga mixigta inaga leh waa inaan ilaashanaa labo shakhsiyada labaad ee qiyamkeena ku jira muslimiin baynu nahay marka waxaan ahay qof muslim oo Soomaaliyan marka identity-gayga iyo hawiyadeyda la weydiiyo muslimun aqeedatan ayaan Soomaali luqatan afkaygi iyo dhaqankaygi iyo fikirkaygi waxa weeyaan ayaan ahay barbaarintaasi waxay door wax ka qaadanaysaa qiyamkii Soomaaliyeed in ubadkaygi inay ku hana qaadaan daarada dheer haddaan dhiso guriyo waaweyn haddaan dhiso gaariyo qurux badan haddaan soo amaahdo kumbiyuutar haddaan soo iibsado kamarada haddii aan la imaado دكما البحر يده وحاس البحر قبل دقيقة إلا هو أدوات صوء ما هذية إلا أن بدلوا قاب فكر كمسكح ذيدا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مركا قيمك إلا أن كنا قنوا أدينا أي وحيابه هو وين نرشينا كقيب قادنا يا أي محيط علي أي نقطة ضروري ويا والواحد لا يكتان صدح يتوبان قضب أخسان الشيء بل إلى إيجابا هذين مصدح يتوبان كقضب قيم هذين المعلومات كين هذين لقارك والدولة دينا لقارك ودقاله هنا لقارك
oo siyaasaddeena laga arko oo bulshadeena laga arko oo fikirkeena iyo dhaqankeena laga arko nusuusteedii waqti uma hayo ma sheegayo waxaan rabaa inaan maskaxdaada flash ahaan oo kale inaan ila dhagayso min abraz alqiyam alislaamiyya qiyamka ugu waaweyn ee islaamku ina baray ee nabadgelyadeena iyo wada jooggeena ka shaqaynaya haddaynu weynana nabadgelye la'aani ka dhalanayso waxaan u qaybiyey 4 haamood ayaan u qaybiyey qiyamka siyaasadeed qiyamka bulsho qiyamka dhaqaale iyo qiyamka fikriga iyo thaqaafada culture-ka aynu intaasoo idilba nusuus qur'aan ah iyo nusuus sunno ay leedahay koow الناحية السياسية قيمك ووين جانبك السياسي تكريم الإنسان ولقد كرمنا إنسان أكتين وإنه كرامة كلية خيرك دونها النقض عدوا دونها النقض تولدوا دونها كيمات صابولها هذا مال قبينها هذا الكرامة الإنسانية أكتين إن قيمة كلية لبا وذا تشرق حكمك الشورى في الحكم الشورى في الحكم بيري هوري المسلمين أريكا كتجين بيري هوري أي مسلمين كتجين dhawacyada waaweyn ee taariikhda islaamka soo galayna waa markii xukunkii islaamka laga leexiyay ashura laga leexiyay ee kala talisnimo uu noqday magacu doonaa ha qaato wixii ka dambeeyay markaa waa qodob 3 العداله 4 رفض الظلم ظلم ina naco ama anahay ugu dhaco ama qof kale ha ku dhaco الحريه oo qofku inuu go'aanku doono qaadan karo oo uu dhawaaqu doono ku hadli karo hadduu qaldamo waa la sixi laakiin qofka inaan la daboolin carabkiisana aan la xidhin qodobka ugu dambeeya ee الناحية السياسية waxa weeyaan المساواة hantida maaha risqiga maaha ka ilaahay baa kala fadilay laakiin المساواة maxay أمام الشرع والقانون wixii noo yaalay inaynu u simannahay markaynu hor nimaadno een qofna si gooniya loogu xaglin qofna si gooniya dulmi aanu ugu dhicin bimacnaa tusaale yar jago yar baa lagu murmay halkan waxa ku murmay nin maalqabeen ah iyo mid yaroo saboola ku murmay maxkamaddii baa la isla tegey islaantii yareed ee halkaa ku murmaysay jagadaa yar ciyaalkeeda rabtay inay u soo dhiciso ee maalqabeenku uu kula murmay maxkamadda marka ay tagaan inay sidnaadaan oo xuquuqdii dhabtahay la kala lahaa laakiin aanay dareemin qofka aan waxba haysan aanu dareemin halkaa xaq ku heli maysid xaqaagii heli maysid cidna laaluushi kari maysid maalinba ku noqnoqon kari maysid ka maalqabeenkuna uu dareemo ilbidhiqsi inuu ku qaadan karo waa waxyaabaha nabadgelyadana saara dulmigana maxay tolay faafiya taas waxa weeyaan waa qiyamkii 6dii qodob ee ugu waaweynaaye qiyamkii siyaasiga ahaa bal qiyamka bulshada ila eeg weydin yaabi cidna marti uma nihin muslimiin haddaan nahay aqoonta islaamka laakiin waynu nacnay diinteenni ma akhriyayno cilmigeenni ma akhriyayno ma eegayno waxaynu rabnaa inaynu soo amaahano had iyo jeer dad kale afkaartooda alcadaal الناحية الاجتماعية حق bulshada kow maxaa ka ah al-usra qoyska maantana dubbaha ugu weynee muslimiinta la rabo in lagu kala burburiyaa waa qoyska halka la rabo dubbuhu maanta halkuu ku dhacayaana waa qoyska oo dumarkiina la rabo gooni in loola baxo raggiina gooni loola baxo deedna labadaa la isku diro al-usra qiimaha islaamku uu qiimeeyey hooyga muslimka ah zawjka iyo zawjada waa qiimo labo صون حق المرأة gabadha xaqeeda in la siiyo lana buunbuuniyo zamankaynu maanta aynu joogno weliba sheekh cabdilxaliim abu shuqa 16 sano wax ka badan wuxuu qorayay hal kitaab maalintuu gebagabayna raxmatullahi caleyh tiisii baa timid kitaabkiisa waxaa la yidhaahdaa taxriiru lmar'a fii casri الrisaala nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo qaaday calankii xoraynta ruuxa dumarka ah xuquuqdeediioo kaamiloo siiyey 12 mujallad buu kitaabkii noqday
oo cumrigiisii oo dhan wuxuu ku dhameeyey maadaam uu arkay waranka gaaladu maanta inuu halkaa inuu maxay tolo inuu ku dhacayo inuu gaashaankii islaamka kitaabkii iyo sunnada inuu waranka gaalada inuu kaga qabto gabdhaheena waxaan ugu baaqayaa inay halkaa aqoon badan inay u lahaadaan xuquuqdiina diintu maxay ka tidhi sunnadu maxay ka tidhi fiqigu muxuu ka yidhi inaana cidina idiin noqon afhayeen idinku xuquuqdiina aad u doodaan cid allaale ciddii wax aan diintiina khatar ku ah ku hadashana cidda koowaadee tidhaahda maya inaad noqotaan dad cilmi iyo aqoon sharciyan qodobkaasna waa daruuri qiimaha saddexaad ee aljaanib alijtimaaci waxa weeye waa soo sheego waa social welfareka iminka afartan waddan ee iskandinaafiya la yidhahdaa social welfare bay leeyihiin soo maha hadda markuu cumar bn khataab radia allahu canhu uu leeyahay hooyo kasta oo ubad dhashay ilaa ay ubadkaa ay naaska ka jarayso anigaa mas-uuliyaddiisa iyo caanihiisa iyo noloshaaba anaa qaba ha laygu qoro muslimiinta markuu cumar uu leeyahay imisuu ka horreeyey marka uu leeyahay khulafadii muslimiintu qofkii aan guursan inan iyo inanba aan guursan ee doonaya inuu guursado baytulmaal ilmuslimiin baan ka siinaya ha iskeeno marka uu leeyahay qof kastoo noo shaqeeya dowladda u shaqeeya oon haysan hoog iyo guri uu dego annagaa u dhisayna haddaanu muslimiintii dowladdii muslimiintana hanoo yimaado qiyamkaa goorma muslimiintu ka hadlay goorma laakiin aaway maanta halkeebay maanta ka jirtaa qiyamkaa ku noqoshadeeduna mujtamacuu dejinayaa mujtamacu nabadgelye xaqiiqiya ayuu helayaa qofku baahiyihiisii asaasiga ahaayuu kari waayey markuu helo cid la qabata oo uuna minnad sheeganaynin una gallad sheeganaynin u aaminsan xaqullaahi inuu yahay qofkaasi inuu maxay tolay inuu helo almas-uuliya ijtimaaciya waxaa soo hoosgelaya alxisba waxay muslimiintu u yaqaanaan alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ma aha arrin qofku markuu doono samayn karo markuu doono uu ka tegi karo bal culammada mucaasiriinta ah iyo culammada qadiimka waxaan ka akhriyey shantii arrimood ee waaweynaaye islaamku ay tahay inuu ilaaliyo addiinu walnafsu walcaqlu walcirdu walmaalu shantii qodob waxay yidhahdeen hal qodob ha lagu daro oo ha lagu ijtihaadadee ila ijtihaadku ilaa yowma alqiyaama uu soconayaaye shan yaan lagu joojin maqaasidu lislaami alkhamsa ha laga dhiga bay yidhahdeen maqaasidu lislaami sitta maxay ku dareen alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo waa maxay wax allaale wixii qiyamkeenna iyo diinteenna lid ku ah inaynu baaq dheer iyo dhawaaq dheer inaynu nahno may naga daaya wax allaale wixii wanaag ahna inaynu isku sheegno innagoon cidna uga habranaynin cidna uga baqaynin cidna uga xishoonaynin aadaabtii uu shalay sheekh cabdinaasir inoogu sheegay aadaabu nasiixana u marayna oo jidkeedii u marayna laakiin waa inay inagu jiraan weliba dadka ummadda u taliya ama culammada ama maalqabeenka ama salaatiinta bulshada odayaasha u ihi inay kudhac inay u leeyihiin arrinkaasi nama qabto diintaydii buu dhaawacayaa qiyamkaygii buu dhaawacayaa hana laga joojiyo idan taasina waa maxay waa aljaanib alijtimaaci oo taa inaynu ku dheganaano jaanibka iqtisaadiga ah qiyamka soo hoosgelaya jaanibka iqtisaad ee nabadgelyadeena adkaynaya taqdiisu alcamal annaafic inaynu isku boorino ubadkeena aynu ku barbaarinno shaqadu sharaf inay tahay in la shaqaystaa sharaf inay tahay wax allaala wuxuu doono shaqadu ha ahaato halkanaad maanta joogtaan soo maaha hargeysa bal dhalinyaro dhegaysta iyar yamani baa idiin soo qaxay suuriyaan baa idiin soo qaxay qolooyinkan aynu etoobiya hore bay noola joogeenba allahu lmustacaan yaan ka tegaya bangladesh baa idinla jooga hindi baa idinla joogta bakistaani baa idinla joogta china yimid iminka oo buurihiina dhagxanta ka gurta allahu lmustacaan war micid baan ka tegey kenya baryaanu generaalkii noo cadhoone ku dar kowdha hadda fiiri haddaadeer waxaasoo dhan baa idin yimid intaasoo ummadooda halkaa maanta maxay tolo idinku timid qof qatani kuma jiro bilaa shaqihi kuma jiro qof walba wuu ka lahaayo dollar buu halkaa ka xawilaa ma xawilo hadda shin somaliland dollar buu halkaa ka xawilaa mid waliba shirkadaha xawaaladaha la weydiiyo hadday xogtayda siinayaan bal inta la xawilo bal waddankaas adduunkana waa la soo saaraa sanadkii inta lagaa xawilo waa la soo saaraa transparency waa la soo dejiyaa
wixii waddanka loo soo xawilana waa la sheegaa wixii waddanka laga xawilana leen dhaqaalihiiba index lagu eegaa ileene bal inta ajnabiya idinla joogta halkaa idinla joogta ee soo kallahday ee idin soo shaqo tagtay intay wax idinka xawilaan iyo waxay shaqo qabsadaan bal kaalay arka haye innagiina maxaan leenahay haddaanan shirkadaha waaweyn haddaanan shaqo ka helin gaari weyn haddaanan helin xabad yaro oo raayda halkan haddaanan ka qabsanin shaqadii igu soconaysay aniga maaha marka halkaan waxaan rabnaa inaan bedelno laanna haddii bilaa shaqadu ay nagu badato saboolkiiba inagu badan saboolnimadu hadday inagu badatana social welfare ma haysano marka nabadgelyada aad raadinaysaa waa maxay markaa nabadgelyada aad raadinaysaa waxaa weeyaan dhallintaadii soo kacday inaad shaqo u abuurtid oo ay foofaan wax yar iyo wax weyn wuxuu doonaa nin baa nebigu yimi sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi maxay tole waxaan u baahanahay waxa la isiiyo ninkiibuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam war gurigii maxaa kuu yaalla waxba maxaad haysataa waxba markaasuu yidhi waxaan haystaa malaha maxay tole wax yar baa guriga kaalay buu ku yidhi ii keen labadii arrimood buu nebigu masaajidkii intuu nebigu ka dhex kacay buu yidhi yaa iibsanaya yaa ninkaa ka iibsanaya labadaa arrimood saxaabi baa yidhi anaa ka siisanaya 1 dirham nebigaa yidhi ar mid kale ugu dar 2 dirham uga dhig waa yahay buu 2 dirham baan siistay 2 dirham buu nebigu siiyey ninkii sala allahu calayh wasalam war waxaad samaysaa bil horta dirham gudin iyo xadhko ku soo iibso gudinna dirhamna reerkii maanta uga tag suuqa galoo soo xaabo soo gur xaabo oo magaalada madiine xaabada ku iibi 15 maalmood ka horna yaanan ku arkin ninkii baa shaqo tegey gudintii wuxuu qaatay xadhkihiisii duurku galay intii nebigu sheegay kadib uu yimi sala allahu calayhi wasalam war maxaad haysataa buu yidhi maanta 10 dirham baan haystaa buu yidhi kaasha 10 dirham baan haystaa markaad iminka leedihiin microfinance marka iminka yaa nebi maxamed ugu horreeyay microfinance waa kane qiyamkeennii haddaynu kala soo bixi kari laanahay sunnadeenni innagu aynu practice u samayn kari laanahay cid kale waxay curisayna ay inala weyn tahay meena mushkiladii nagu ahayn hada rasuulullahi waa ka nebi maxamed abuuraya shaqa abuur soo iminka ma tirahdaan shaqa abuur soo ma tirahdaan rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam isagoo masaajidkiisii jooga oo tukinaya oo habeenkii ooyaya oo rumarkiisa u roon oo jihaad ku jira oo diintii oogaya ayuu haddana wuxuu ku fikirayaa dadka ku daba tukanaya hanti ma haystaan ku filan oo noloshooda iyo karaamadooda werwer bay nebiga ku haysaa sala allahu calayhi wasalam inaan ummadda ku idhahda istaw oon allahu akbar deedna salaamu calaykum deedna halkaa aan ka baxo aniga iyo dhallinyarada igu daba tukanaysa cilaaqadii aanay naga dhaxaynin oonan weydiin war ma guursatay war maxaa ku hor jooga war maxaa dhacay oonan dareemin inaan mashaakilkii wax ka xalliyo haddaanan adduun ku xallin karaynin wejigayga inaan ku xalliyo u saciyo bal meeshuu shaqo ka heli lahaa iyo meeshaan ku jujuubi lahaa iyo halka aan gelin lahaa wahada nafteed waxay ka qayb qaadanaysaa amniga aynu raadinayno ayay si fiican uga qayb qaadanaysaa shaqada waa inaynu qiimaynaa waa qodobka ugu dambeeya waxa weeye الجانب الفكري والثقافي وهذا كبير نبتقليدا فكرك يدقنك كو هذين إمك statistics ويدينو 4 مليون باتران سومالنا ذوي جوغان أوكي إمسا وحقورا إمسا أنا وحقورين انت اوح قرن وامسح وحنا قرن وحنا aan akhriyin mujtamacina waa tira intee leeg bitahay waa meelaha ugu tirada badan adduunka waa meelaha ugu tirada marka aqoontaan ka hadlayna iyo islaamkaan ka hadlayna iyo horumarkaan ka hadlayna iyo midnimadaan ka hadlayna iyo wax soo saarkaynu ka hadlayna halkee ummadiiba laa taqra wala taktub hadda fiiri hadda marka bir hore waxaan soo saaray waxaan u sheegay qowlka masaajida jooga arrin baan u sheegay halkaan uu uga faa'iideysanaya taqriiban hargeysa waxa la ilaa 600 oo masjid baa ku jooga ayaa ka jira 600 oo masjid ayaa la igu jira taqriiban magaalo walba inta laagtahay masaajida ku filan baa ku yaala masaajida salaadaha marka lagu tukado la isku daro salaad walba ka soo qaad 30 daqiiqo lagu tukado 5 salaadood oo min 30 daqiiqo halka iska dhig maalintii kale oo dhan way maran tahay masaajidkii waa maran yahay leyrkii waa free biyihiisii waa free gogoshiisii waa nadiif
haddaynu nahno masaajid waliba xaafaddaa uu jooga hooyooyinka jooga iyo odayaasha jooga 6 bilood ee soo socda sanadka soo socda waxaan isku dayaynaa qof aan waxna akhriyi kareen waxna qori kareen inaanay xaafadayda inaanay jirin ka warrab haddaynu qaadano oo imaamka masaajidka jooga ardayda kula tukata masaajidka yiraahdo 50 hooyo wax u dhig 20 oday adigu wax u dhig u bilaaw alif ba'ta u bilaaw u dhig oo masaajidda aanu isticmaalno intee in leeg bay ummadeenu wax ku akhriyeen intee in leeg mise waxaynu ku wadnaa oo laqbadan baynu ku wadnaa qofkii loo laqbeeyo loogu celceliyo mise waxaynu siinaa weelkii isagu aqoonta kula soo bixi lahaa qodobkaana haynu aad u qiimayno afkaarta maanta adduunka maanta xadaarada reer galbeedka horkacaysa walaa munaasac runta markaan isku sheegno aynanu ismahadinin ثقافة maanta iyo aqoonta maanta waa taa reer galbeedka lagu sameeyo weeyaan ama ha qoraan ama film ha ku jilaan ama buugaag ha ku sameeyaan ama qaab waxa الثقافة halkaas maanta lagu sameeyaa islaamkiina wuu ciirciiraya inuu iska caabiyo ثقافada inuu maxay isagu iska caabiyo isaguna la ciirciiraya soo gelitaanka uu ina soo galo fikirkaasina khatar buu nabadgelyada ku yahay ana dadkan waa dad muslimiin ah waa dad muwaxidiin ah wixii aan soo sheegaa u qiyam ah marka qiyam kale loo soo waarido oo dad maskaxdoodii iyo caqligoodii la soo maydhay loo soo dhiibo hanti iyo lacagna loogu soo daro goobo iyo meelana loogu durmaantumo deedna la yidhaahdo haddii eebu ku roo yahay ha lagu daawado dee marka uu dhawaaqu bato halkaana khatar baa ku jirta markaas marka dadkan fikrigooda iyo thaqaafadooda in la ilaaliya islaamku sida uu qabo waa nabadgelyo fikirka iyo dhaqanka dadkan oo la isku dayo in la bedelaana waa nabadgelyo la'aan qodobkaasina si cad aynu u sheegno oo aynu u waadixino isagana haddii iimaan la waayo ka warrama haddii iimaan la waayo ma fi iimaan wax la rumaysan yahay haddii la waayo ka warrama qoraagii weynaaye ruushka ahaa Dostoevsky rag ugu waaweynaaye ruushka wax ka qoray ayaa wuxuu yidhi idaa maata allahu fakullu shayin jaa'izu qofka laabtiisa haddii ilaah laga waayo ilaahay iimaankiisa haddii laga waayo wax walba qofkaa ka fila buu yidhi hada kaafir idaa maata allahu hadduu ilaahay ku dhex dhinto xasha lilah qalbiga qofka hadduu ku dhinto buu yidhi fakullu shay wax walba qofkaa ka filo gish inuu ku gisho ka filo been inuu kuu sheego ka filo hanti goosad keligii inuu noqdo oo lacagta keligii aruursado ka filo laaluush ka filo inuu ku xado ka filo inuu haddii eebu ku leeyahay inuu ku iibiyo ku dalaalo waddanka iyo badda iyo biyahaba inuu dalaalo bixiyo in yar isaga uu qaato waa suurtagal alqatlu ka filo alisticmaar kolonise inuu ku gumaysto ka filo wax walba ka filo qofka haddii laga waayo aliimaanu billaahi haddii maxatole uu laga waayo aliimaan oo ina siinaya طمأنينة القلب قلبنا كدغيا عقلنا كحصليا حبنهنا كو نغاديا نبدجليده حقيقنا waxa weeyaan ala بذكر الله تطمئن النفوس قلبigu markuu xasilo waan ka nabadgeli adna waad iga nabadgeli ilaahay marka naqaano waan ku nabadgelin adna waad iga nabadgelin marka al-iimaan wal-amn silaasay ay ku wada jiraan وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته